بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay waa Maxamed Saalax Maare waxaan halkan ku soo gudbinaynaa maanso kooban oo magaceeda la yiraahdo Kacdoon Dhalinyaro. maansadaasi waxay si qoto dheer uga sheekaynaysaa ama uga hadlaysaa dhacdadii foosho xumeyd ee 14 Oktoobar ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan iskuiska Soobe oo ay ku nafwaayeen boqolaal Soomaali ah oo runtii qaranka qurux iyo qiimaba u lahaa. maansadan dhanna waxaan uga baroor diiqaynaa dadkii ku dhintay, dhanna waxaan wacyigelin ay u tahay iyo dhiirigelin dhalinyarada Soomaaliyeed, dhanna waxaan kala sheekaysanayaa guud ahaan magaalada Muqdisho. maansada magaceeda Kacdoon Dhalinyaro la yiraahdaa waxay ku bilaabmaysaa sida tan: waxa dhacay masiibo ka weyne bulsho yahay ka dhiidhiya maanta oo dhibkooda aan la dareeno, inta dhaawac gaadhay jirkooda in dhaqaale meesha ku weynay iyo dhimashadoo tiro beeshay. uma jeedno maanta dhaliilo dhaleecayn xanuunku ka weyne, dhalinyaroy runaanu midowno, dhalinyaroy runaanu midowno, awooddeenna aan ka dhabayno, aqoonteenna dheefsanno maanta, hooyada dhibaatadu gaadhay aabbaha dhallaanka ku waayey war aan dhaawacooda daweyno. xamaray ha quusan dhankaaga, xamaray ha quusan dhankaaga, waxa iman dharaaro wanaag leh amni iyo dhalaal wirwidhaaya. xamaray ha quusan dhankaaga, awooddaadii baa dhalanaysaa, dhalintuna aday kuu heelin. xamaray ha quusan dhankaaga, dhaaxay colaad ku dul joogtay, dhaaxaad dagaal xamilaysay oo dhiig ku daatay korkaaga. Muqdishoy dhibaatadu waa mar mana sii jirayso dhegteedu, qarax iyo masiibo dhammaatay. war u hura dhaqaale dadkiinna, dhibanaha xanuunsan daweeya, dhakhtarrada tagoo garab siiya, dhiig shuba walaal sadaqaysta. dhacdadani xanuunka ay reebtay waa dhaawac gaadhay xiskeenna, dhammaanteen haddaan si midowno oo aan kacdoon ka dhabayno, dhagarqabaha jaalis u dhiigno, sumcaddeenni baa dhalanaysaa, midka dhoofsan baa iman doona, kan dhaqaaqayaa degi doona, waddankoo dhan baa xasilan.